kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho wasiirada ka tirsan xukuumadda Soomaaliya xubno kamida xildhibaanada golaha shacabka gudoomiyaha gobolka Banaadir qaar kamida gudoomiyaasha degmooyinka ayaa waxa ay ka qayb galeen kulan looga hadlayay wacyigelinta cudurka coronavirus. kulanka ayaa waxa looga hadlay sidii looga fulin lahaa degmooyinka gobolka Banaadir wacyigelinta coronavirus. wasiirka wasaaradda warfaafinta ahna gudoomiyaha guddiga wacyigelinta qaranka Maxamed Cabdi Xayir Maareeya ayaa ka hadlay dadaalka ay ugu jirto dawladda Soomaaliya ka hortagga cudurka coronavirus. dawladuhu marka waxay ku tartamayaan si ay dalkooda uga saari lahaayeen xanuunkaas ay ku tartamayaan ninba meel bay la martay mid dalkoo dhan shutdown gareeya mid qaybo kamida xidha mid qaab kale u qaabila qaabo badan laakiin tartaba loogu wada jiraa inuu wadankiisa ka saaro inaanu wadankiisu noqon ka ugu dambeeya ee xanuunku ku hadho markuu adduunka kale xal u helo ayaa aad loogu mashquulsan yahay Kenya ina ku xigta ugu yaraan suuqyada ma xidhin masaajidada iyo goobaha kale way xidhay iyo inta aynu ku samaynay kale waxay ku dartay qof banaanka u soo bixi kara isagoo mask wadan ma jiro hadduu wada waxay la mid tahay isagoo ah qof xanuunka faafinaya ay la mid tahay talaabo adag baa laga qaadaya wadamada kale Itoobiya saasoo kale way inakuna marka tabartaan doona ma ahaano dawladdu dadaalkaas waqti hore dhacna oo horena way samaysay haddana wali xoog waxay ugu hawlan tahay sidii Soomaaliya East Africa dalka ugu horeeyo uu ka baxo noqon lahaa aynu noqon lahay ay ku dadaalaysaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filesh ayaa ka hadlay kulanka looga hadlayay wacyigelinta cudurka COVID-19 warbixinada shirka aan idin sheegay rasaaruhu uu shir gudoomiye habeen walba hay'ad walba hawlaha loo diraa hawlaha gobolka Banaadir loo diro ayaa waxa kamid ah inay ka soo warbixiyaan tirada meydadka ee maalin walba la geeyo qubuuraha waxaan soo bilownay inaan gudbino tirada meyd ee qubuuraha la geeyo maalin walba 19 bishii tagtay ilaa caawadan waa gudbinay warbixintaas waxaan filayaa caawa inay 33 bas masaasmay caawa 33 meyd ayaa la soo aasay maanta tiradii ugu badnayd 32 yes 32 tirada ugu badnayd oo aan gudbino maalin qura waxay ahayd 49 tiradii ugu yarayd ee aan gudbinona waxay ahayd 22 waa 19 ilaa 1 bisha May oo maanta waxay cagacageynaysaa marka 500 ku dhawaad Maxamed Cali Weheliye Universal TV magaalada Muqdisho.